joogta magaalada Ceelgaabo gobolka Sanaag ما شاء الله halkaas aan waxbarashada malcamad quraanka iyo dugsiga hoose dhexe ilaa galaaska shanaad laga soo gaarayo aan ku soo qaatay 2008 baan halkiisa u soo wareegay markaas oo aan doonayay waxbarashadeedii si hormariyo deetana waxaan ku biiray school boarding oo la dhaho mul quraan oo ku yaala bariga magaalada Hargeysa halkaas baan ka galay waxbarasho 9 bilood markaan dhiganayna waan xanuustay oo xanuunka imika iga dhigay xanaafada ama disable ayaa igu dhacay marka waa kaas walaal محمد كل ده تاريخ سوسي وين مريض دويل لنا يراوات لكن حر تاريخ دي دو إسلا يرشق ساعة محمد مر لبعض مرستحادات بنكو بسور دوينيا عاد موضوع ما حسنت يصدق قرحه والبنات كوجا ساق وجش أنا ما تشرف التهود ما تأكل على فردية بقى محمد هالدار بالواحد وربيحني جسيسة طبعا كيسان يتباب الله هيجي طبعا كيسان يتباب الله هيجي تابع جلاي runtii wuxuu ahaa barnaamij magaciis barnaamijkaasi nalaadkiisa uu sii qoyay habeen dhaweyd ayaan magaalada Hargeysa ku qabanay runtii barnaamij wuxuu ahaa aan in badan soo wadnay qorshihiisa aniga iyo asxaabteeda ku iigu dhow runtii waxaan jeclaystay barnaamijka inaan qabanno dhamaadkii 2019 jeedada ugu weyn waxay ahayd 10 sano buuxsantay intii aan laxaad kala ayaan nolosha dib u la qabsaday taatana barnaamijkaas waxaan u qorsheynay in habeenka dadka aan kala hadlo oo uga sheekayo waxyaabo badan oo dee wanaag oo qabano oo ilaahayna nala qabtay ummaduna ayna la qabatay taatana barnaamijkaasi runtii magaca barnaamijka waxa la ahayd inaan saaxiib nahay walaalanahay oo farxayaan le dayax weerar la doon halkan ka salaamayo taatana barnaamijkaasi tiimkayga oo dhan baa ka shaqeynayay habeen dhaweytoola khamiistii ayaan ku qabanay xarunta dhaqanka ee Hargeysa runtii dad badan oo na soo sharfay oo noo yimid oo meelo badan nooga yimid gobolada dalka Burco iyo Gabiley iyo Ceelgaabo iyo dalka oo dhan ayaa nooga yimid oo taana runtii waxaan kaga hadlaynay intii aan laxaadka waayay wixii aan qabtay hamigayga saxaafadda ugu badnaa iyo caqabado markaas ila soo darsan dadka uga sheekeeyay marka inahaas ayuu koobsanayay Samiiray maxamedow 10 sano tabaabulahayga taaba galay arrimaha saxaafadda horta ugu muhiimsanayo midhahaagi ama ahmiyadda saxaafadda ama hamigi ka dhex guuxayay ayad kaga rumaysay bal saxaafadda caynkaad ku bilowday iyo hamiga soo ku galay bal warbixinaga yarasi saxaafadda horta markaan xanuustay aan dhakhtarka ku jiray inta ugu badan waxaan naftayda ku maaweelin jiray oo dhageysan jiray radio-ga ama idaacadda radio halkiisa inta ugu badan aan dhageysan jiray dabadeetana waxaan jeclaystay wiilashan iyo hablahan idaacadda ka hadla mar walba dee aan dhageysto sidoo kale inaan noqdo dabeetana imay fududayn dee inaan markiiba intaan elchi qorto shaqo dalbadoon shaqeeyo waxyaabo badan oo aniga naftayda dee imay fududayn xitaa aniga laftayda waxaan ii saamaxayn caafimaadkayga inaan dee shaqo raadsado markaa dee aan laakiin sida ugu fudud ee aad u samayn karto ayaan ka fikiray sidaas dabeetana guriga markii isbitaalka laga soo saaray guriga la keenay ayaan idaacad yar baan sameystay radio culture dad badani imika wada garanayaan dabeetana idaacadda ayad baan codkayga ku duubi jiray anoo waliya iska dhigaya dabeetana sida radio halkiisa u duubto wax ayaan steelkeeda raaci jiray wararkana asaasan u diyaarin jiray anoo idaacaddii sidaa u duubaba maalin television universal la dhaho warbixiniga sameeyey dad badan baa daawaday dad baa ila soo xidhiidhay dabeetana waxaa dad igu dhiirigeliyeen in saxaafadda barashadeeda bilaabo iskuulo badan baan Samiilay raadiyay qaar jaranjarta ay diiday dee wadiga arkay dhismayaasha waddan waa wada dabaq qaarna waxa ay diiday mushkiladahan kala kulmay waxa kamid ah macallimiintii markaa dhigaysay iskuul kamid ah ayaa koska maantay dhaqaalaha ayuu nagu kordhiyay isagoon sabab noo sheegin dabeetana kaasna saasaan uga hadhnay kii saddexaad baa alxamdulillah ilaahay nagu asturayo laba meelood markaan ku khasaarnay runtii mana oran karo ku khasaarnay laakiin aan ku guuldaraysanay oo aan suurta gali weeyay inaan ku biirno ayaa kii saddexaadna yeelay runtii macallin wanaagsan oo habeenkii barnaamijkan nala joogay oo aan u mahadnaqnay oo halka habeenkii soo xaadiray barnaamijkii 10 sano ayaa wax wanaagsan la qabtay runtii halkaas aan waxbarashada ka soo bilaabay deetana markaan dhameeyay waxbarashada saxaafadda muddo kooban oo igu baray ayaan damcay inaan shaqo raadsado meelihii ugu badnaa shaqada raadsaday waxa kamid ah halkan imika joogo aan ka shaqeeyo laakiin markaa ma suurta gelin haddana shaqadii ugu horeysay soo baxday waxay ahayd
Star TV oo 3 sano joogo dhamaadka sanadkii hore aan ka tagay laakiin markii hore Samiila hamigaygu waxa inaan idaacad ka shaqeeyo laakiin shaqadii soo baxday ee ugu horeysay ayuunba mid television noqotay marka saasan TV-ga aan ugu biiray marka Star TV-na 3 sano waayaheeda lahayd ayaan iyadana ku soo qaatay maxamedow waxaad ka dhawaajisay inaad adigu sidaadaba iska jeclayd inaad ka shaqeyso raadiyo isla markaasna aanad daneyneynin TV ahmiyadda TV inaad ka shaqeyso aad waxa kuugu adkaatay saan ka warhayo inaad raadiyo sad uga shaqo gashay runtii aad kuugu yara adkaatay bal maxaad u yara kala jeclaysanaysaa inaad TV ka shaqeyso iyo inaad raadiyo ka shaqeyso runtii waxaan baan oran karaa waayo aragnimo la'aan ay haysay television-ka iyo idaacadda waxa runtii aad u adag in laga shaqeeyo idaacadda aad laakiin TV-gan markii hore moodayay inuu adag TV-ga wax la koodino la duubo wax laga bedeli karo waxaan ku dib badan laga ma maro laakiin markii aan dibadda ka joogay saxaafadda waxaan u haystay inuu adag yahay TV-gu laakiin idaacadda wax live waxay ku xidhan tahay hal abuurkaaga codkaaga waxaan ku yiri qof buu ka af Soomaali badan yahay ayuu kaga wanaagsanaanaya idaacadda runtii anoo 3 sano ka soo shaqeeyay television saxaafadda wax badan iiga baxsan yihiin ayaa haddana aan taxadka ka soo bilaabay markii ugu horeysay aan radio Hargeysa yimi test voice baa laga qaaday runtii haddana xiriirintii baa muddo qaadatay haddana markiiba laguma sii deyna dad baa ila gelayay welina assistant baan ahayo waxaan ku yiri detox inkastoon idaacadda inta badan aan xiriirinteeda galo haddana runtii idaacadda aad u adag laakiin anigu waxaan ku faraxsanahay inaan sidii u moodayay baan weliga hore waxaan islaa way fududahay waayo waxaan ka soo qaaday idaacadda iyo cajalada ka duwayay marka runtii radio Hargeysa inaan imika ka shaqeeyana sharaf weyn baan u arkaa ma sha Allah anaguna waan ku hambalyeynaa anaguna haddaan bahweyn saxaafadda iyo danahay wasaaraddiiba aad baan ugu faraxsanahay nala shaqeyso wasaaraddiina la joogto walaal TV idaacad kala nahay laakiin isku mid un baynahay isku bahdeen baynahay maxamedo haddaan su'aalayga hore u sii wato waxaa jirta waraysiyo badan aad bixisay sidoo kale waxaa jirta qisooyin badan aad soo bandhigtay waxaa jirta barnaamijka maanta xarunta dhaqanka ku soo bandhigtay oo 10 sano adiga noloshaada ahaaba ee ugu dambeeyay ee dhibaatooyinka iyo guulaha baad ka gaadheen maanta oran karnaba dhibaatooyinka iska ilowno guulihii baa ka muhiimsanba arrimo badan oo noocaas ah sameysay baa jira bulsho badan oo adiga maxamed hadoor ahaan ku garanaysa oo kugu xidhan ay aad u la jeclaysanayay bar inaad buug ka qorto magacana aad buug u sameyso arrinka masalada yara sameeyo masalada ku dhaqaa horta runtii in aan buug nafteeda ka qoro waa wax igu jira haddana waxa sidee wax badan waayo aragnimo badan aruurso waayo badan marxalado badan marka iminka hadda ma diyaar uma ihi laakiin way igu jirtaa walaal dad badanna way ii soo jeediyeen laakiin waxaan sidee wax intan way igu yartahay markaan eego runtii laakiin haddii ay macquul noqoto walaal dee waqtiga iyo maalmuhuna badan marka waqtigeena u deynayna taas wahaga maxamedow bal waxaan doonayaa qisadii inaad iga yaro waranto askarigii oo aad bulshada Soomaaliland aad u soo jiidatay qiso runtii dhacday ah oo runtii maskaxdaada iyo maskaxdeeda iyo bulshada inta badan dad ku dhow iyo kugu xidhanba ay aad u jeclaysanayeen aadna uga qiiroodeen arrinkan aad uga xumaadeen markay dhacday qisada inaad ila yaro wadaagtaan doonaya runtii habeenkaa sheekadeedaan ku soo darsaday laakiin waxa dhacday waxay ahayd 2015 wahaga markaa ugu horeysay wasaaradda waxay kula balansanaa agaasimaha idaacadaha radio Hargeysa iyo idaacadda oo dhan Xasan Maxamed Yuusuf runtii qof aad u qalbi wanaagsan oo dadnimo leh xasan baa ila balansanaa deetan waxaan nimid wasaaradda akan kadinka marka laga soo galo runtii markii aan nimid ayaa maalin rabadaana bay ahayd oo dadku sooman yihiin deetan waxa dhacday in uu askarigaasi igu dhaho xagaad u socotaa deetan waxa ku xasan ba deemga balan maad lahayn buu yiri joog deetan waxa ku yiri waa runay laakiin xasan ba wacayaan ku wacaya ka qabo deetan markaan ugu dhiibay wada hadleen uu teleefankiisa soo celiyay buu yiri maxaan ku garanayaa qofkan ila hadal siisay inuu Xasan Maxamed Yuusuf yahay waxaan ku runtii anigu been ku sheegi maayo waana Soomaaliya adna laga yaabay inaad Soomaan tahay qofkan kula hadalsiiyay Xasan buu ahaa teesiida ma ku sii deynay meesha ka dhaqan runtii taxi baan la socday markaan soo kaleystay taxi baa igu yiri
waxaad samaysaa laba mid soo gal walaalo dee in badanna waynu taagneen ana waan shaqaysanayaa ama gurigii aan kugu celiyay ama halka ku dhigo ama ka aniga markaan isqiyaasay waxa ii haboonaatay inaan halka igu dejiyo xasanna waa halka igu yimaado deetana ninkii askariga ahaa markuu arkay in baaskiilkayga loo dejinayo ayuu igu yidhi baaskiilkaygana wuu kala tuuray hadalna wuu raaciyey weliba wiilka taksiga ku yidhi maxaad saa u samaynay wuxuu ku yidhi war hanagaga tegin deetana runtii waa niyad xumaaday aadna waan uga murugooday arrinkii deetana anoo arrinku juqi ah oo magaalada hadaba wasaaradda horteeda taagan tahay halkiisiiba wasaaradda horteeda ay taagan tahay ayaa waxa soo baxay xasan maxamed yuusuf deetana xasan oo aad u xanaaqsan baa soo baxay deetana wuxuu ku yidhi ninkii askariga ahaa miyaad ilaahay ka baqay bal qofkaad celinayso noocuu yahay waxay ahayd inaad soo qaadato ood igu keento xafiiskayga runtii sidii ayaan ku galay wasaaradda anoo wixii kadinka aan kala kulmay iska ilaaway waayo ujeedada ugu weynaan lahaa inaan xasan la kulmayahay inaan wasaaradda soo galayahay deetana markaan wasaaraddii tagnay xasan aan xafiiskiisii leegeeyey ayaa xasan adigu muddo nus saac ku dhow ayuu iga maqnaa deetana adigu wasaaradda dhexdeedaan la hadlo waan isgaranaynay markaa in badan deetana sakariya axmed maxamuud baa igu yeedhay deetana sakariya aan ku yidhi xasan inta anaa u yeedhay sakariye deetana waxaan ku yidhi sakariyow dee waxaad samaysaa xasan igu yeedh xasan baa xafiiskiisa isii geeyey deetana markii uu igu yimid ayaa waxa dhacday wuxuu yidhi walaal xasan xanaaqii ayuu geed halkan uu xanuunsanaya marka halkan markuu nastuu ku imanaya aad markaa runtii arrinkaasna saas buu ahaa runtiina askarigii dee malaha waa la bedelay kumaba arko wasaaradda imika runtii askar fiican oo goba imika joogta wasaaraddana si wanaagsan baa laygala dhaqmaa hadday noqoto dareewaliin iyo dadka kale aan asxaabta ku nahay kuwa i yaqaanay iyo kuwa aanay aqoonba runtii waa laga soo dhaweeyaa oo sharaf baan ku leeyahay وهاجا dadka ilaahay horta muusimino qof maanta yar xanaaqsan ama problem yar haystan oo yar masaali karna maxamedow bal marka laga imaado saxaafadda marka laga imaado arrimaha waxbarashadada ma jirto waxyaalo kale iska jeceshayna samayso runtii samiilay noloshu way qaybo badan tahay saxaafadda kaliya maaha wax kasto wanaagsan oo ilaahayna raali ka yahay dadkoona aanu ceebsanayn oo dhibsanayn waan jeclahay inaan sameeyo وهاجا محمدو runtii hadda waxaad ka mid tahay shaqaalaha wasaaradda warfaafinta isla markaana dawladda ah ee raadiyo Hargeysa ka shaqeeya ma jirto waxyaalo ku qorshaysan isleedahay soo kordhi wallahi walaal waxyaabo iyo wax qurux badan oo maskaxdeydana ku jira way jiraan oo runtii waxaan imay wasaarad dad iga aqoon badan joogaan iga waaya aragsan qaar 30 sano 40 sano 50 sano ku dhow shaqeynayay runtii marka waxaan soo kordhinayaa runtii yar laakiin waan jeclahay inaan wax cusub keeno laakiin runtii meel waxaan imid aan anigu ugu aqoon yarahay marka runtii wanaag inaan ku kordhiyo un baan rajeynayaa laakiin إن شاء الله. ولو محد وقتك نيرهايو وأن تعالى إن برانش كسو جبينو. واحد شرطها أول عاد بلوضي وعاد دتك محكو شجعي لحد كده بستري عاد بلوضي إن لوجو سمايو برأي لوجو سمايو شروين كقيمة يجو لوجو تلاقي بوريجرام كاسي بقول كيبا لواتن وران كنا عاد بو هرجلا والله أنا وران كنا بقول كبقول وهرجلا استيتنا وكهرجلا يبا بقول كل لواتن مهردا بدنا قاب مهردا بدنا ساو سمي بعشرتا بوريجرام كاس مركو كوجو دشاي وحيله وجو بدنا كوجو مهم سنوات ما يسمح كم ده سميراي هرتدي ودن كينا دمانتي أنت وجو بدنا قاب نوع أمبا أقوليها لورد ستايو intii lixaad le murqale xoog leh ayuun baa guri dhisatay deynina foo hargeysa dabaq kule way yartahay inaad aragto laga yaabo inay jiro laakiin ujeedada ugu weyn ma aha aniga kaliya wax ii yaala dhamaanteen waa wax u yaala dawlad iyo shacabba runtii mas'uuliyadda ugu weyn ee dawladda leh shacabkuna kaalintooda way leeyihiin in ay dadkaas loo sameeyo salaxayar runtii wax weyn ma aha guriga marka la dhisayo bilowga inay ku darsadaan dawladuna qandaraaskay bixinayso dhismayaa kasto loo sameeyo ama dawladda ama gaarba loo sameeyo in lagu daro marka runtii meelo badan baan ka sameeynaa hadii noqoto xarunta lafteeda xarunta dhaqanka jaamacadda Hargeysa hoolka shaqaalaha meelo badan oo wacyigelin sameeyo jaamacadda Bulxan
FFU runtii professor Bulxan intaan kulan ku kulannay ayuu ballan qaaday markii dambena waa xalay sheegay inuu ka sameeyay runtii waan ku amaanaya meelo badan baa jira iyaguna sameeyay oo kaabadaas ku dhig runtii haddii la wado de kaligeena ma dad badan ay wadaan waxaan rajaynaynaa isbedelkaasi yimaado dadkaasina ay noqoto runtii madaxweynihii hore Siilaanyo tikleetu soo saaray meel wal oo public ah oo dadku isugu imanayaan in la sameeyo haddana runtii halkan in la sii xoojiyo la sii wado oo meelaha dawladda iyo meelaha dadku isugu yimaadaanba la sameeyo runtii dadkana waxay noqonaysaa inay dhiirigelin oo guryaha ka soo baxaan oo wax bartaan oo shaqaystaan oo dadka soo dhex galaan oo dadka wanaag unba walaalka ku jira maxamedow badanka dadka naafooyinka isla markaasna aan laxaadkooda u dhamaystirnay laakiin waliba dadka ilaahay aanay sanayn qof walba kartidiisa iyo kartidiisa oo meel ku gaadhaba dad badan baa jira maxamedow markay is arkaan inaanay soconaynin faraha ka qaada nolosha guri un dhex fadhiyo bas cuna cabo oon seexda dadka bal maxaad kula yaratan lahayd walaal mar walba waxaan u sheegaa dadkaas runtii hataa idinku diyaar u tihiin inaad nolosha wax ku soo kordhisaan waa mid idinkeena ku xidhan inagu hadal way u sheegnay in bay noqonaysaa laakiin iyaga horta ka go'an tahay iyo haddii aynu imika si walba tala dadka u siino ku soconayo ku kala baan leenahay nolosha wax ka gaar aanu qofkii diyaar u ahayn mas'uulta galayso dadka waxaan leeyahay dad doonaysaan inaad nolosha wanaag iyo horumar iyo qurux ku yeelataan runtii dadka aan laxaad kale ayn idin soo dhaweynayaan idinma colaadin doonaan idinma nici doonaan wanaag unbaa idinkaga horeeya xaggooda idinku laftiinu kartidiina muujiya kuwan kale ay noqoto caadiga laxaadka qaban waxaan leeyahay cala laqal badanaa dadka wax la arkaa dad inkastoo imika wax badan ay soo bedelayaan samiire oo la fahmayo dadkan inay yihiin dad jiro oo wax qabsan karo aad loo fahmayo haddana wuxuun baynu leenahay runtii waxa ugu yaraad u qaban kartaa inaad dhiirigelisaan oo niyadda wanaajisaan oo markaad aragtaan soo dhaweysaan markaana dee Somaliland quruxda badan aynu doonaynaa waa taas wax walba loo sameeyay guntiga gabagabadii barnaamijka halkan yaad ka salaami lahayd dad fursad taa ku siiyo runtii aad waxaan u salaamayaa adiga ugu horeyn iyo guuleed oo muuqaalkay naga duubayo saaxiibkay Yoonis oo ila socday iyo dhammaan wixii magacayga muuqacaysa garanaya waxaan salaamayaa hooyaday oo ceelgaabo joogta aadan hooyo salaamayna marka walaalahay iyo familygayga oo dhan waan salaamayaa adigana mar labaad baan ku mahadnaqay aad mahadsantahay daawadayaal waxaad naga daawanaysaan waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijka arrimaha bulshada waxaan idin daadahanaysaa wana Samirada Qabdi Samira Kayfa toddobaadkan barnaamijka waxaan noogu martay ahaa Maxamed Muuse Jaamac Maxamed Haldoor barnaamijka waxa farsamada iyo sidoo kale kameradan quruxda badan baa idinka duubaya waa Guuleed Faarax anagii barbaarta TV-ga qaranka waxaan kaga tageynaa sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad bad mahadsantahay walaal Maxamed adiga mudan walaal adiga